sheekhul fadil laba aan isku keenay oo labaduba cabasho ay lamaanuhu ka cabanayaan xagga waalidiinta ayaan kusoo wada gudbinayaa. halka kood wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekha iyo walaalaha qolkaba waan salaamaya salaan ka bacdi waxaan ilaahay subxaana watacaala idinka baryayaa dembi dhaaf iyo cibaado sugan. waxaan ahay gabar la qabo oo ilaahay subxaana watacaala siiyey sawj aad iyo aad u fiican iyo ilmo fiican waa ilahay mahadii bay leedahay. ilaahayna ha usii wanaajiyo idinkuna iigu soo duceeya. waxay leedahay sheekhow reerkan fiican dhib baan usoo maray bay tiri. marka ninkayga isguursan rabnay waxaan ku doortay diin daacadnimo aqoon milaadi dabeecad wanaagsan iyo weliba firfircooni bay leedahay. alxamdulilah bay tiri. intiina maanta waa leeyahay oo weli waa haystaa oo isma bedelin waa sidiisii. xaas horena ma soo guursan laakin sheekhow wax badan buu iga weyn yahay ilaa 20 sanadood buu kor iga weynaa. marka waxay leedahay ninkaa iga weyn anigu wax dhibaataa qabo laakiin reerkaygii iyo waalidkaygii iyo walaalahay ayaa la tusay. waxa ninkan ay ku diidan yihiin anigu ma garanayo. markay baahi hayso wax alla waxay iga baahdaan waan siinaa. waa ninkaa professionalkaa bay leedahay laakiin dhibaatay nagu hayaan. haddaan albaabada ka xirto oon idhaahdo waalidiinta mooyaane inta kale ha iisoo geli abaalba ma lihidine ma dembi baan gelayaa. sidee baan reerkaa ula dhaqmaa? maxaan sameeyaa? inkaar waalidna waan ka baqayaa bay tiri. tu kale ayaa jirto iyaduna taasi u dhow sheekayga si aad hal mar uga wada jawaabto. tanina waa gabar waxay leedahay aniguna nin wanaagsan baan haystaayo waan wanaagsanahay. waxay leedahay wiil walaalkay ah oo maxaan ku idhaahdayey nin noloshii ka dhacay ah oo faa'iido badan aan lahayn bay tiri ayay waalidkay ii cabiidinayaan bay tiri. wax kasta haddii lasoo xiro anigii baa raadinaya. haddii mataqaanaaye xataa haddii mar al markuu guursanaya bay tiri anigaa laygu khasbaya oo lacagkeen leeyahay. waxay tiri ninkaasi waalidkay makhasaba inay mataqaanaaye addoon iiga dhigaan bay gabadhu leedahay. maxaad mataqaanaa waalidiintayda kula talin lahayd? anigana maxaa ila gudboon oo aan sameeyaa? marka labaduba waxay ka cabanayaan waalidiinta. falyatafadal mashkuuran wamaajuura. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لبدا سؤالات أنا رجينا inaan maanta iyo ugu dambayn doonto xalaqadeena insha allah. gabadha hore way ku ammaanan tahay waan ku ammaanaynaa waana ugu ducaynaynaa sida ay dalbatay. ninkeeda inuu yahay nin wanaagsan awlaadeedana inay aaminsan tahay inay awlaad wanaagsan ay yihiin sida ay dalbatay baana ugu ducaynaynaa ilaahay inuu labaduba ugu sii wado tabaaraka wa tacaala. doorashadeeda diin iyo cilmi iyo nashaad iyo firfircooni iyo aqoon iyo dadnimo ayaan ku doortay bay tiri laakiin 20 sano ayuu iga weynaa. soomaalidu waxay dhahdaa haweeney qof dumar dhaqa qof ka weyn nin ka weyn ayaa dhaqa way fiican tahay. ninku inuu gabadha uu ka weyn yahay dhib male. doorashadaadana maada ku khasaarin. diin iyo cilmi iyo aqoon iyo nashaad ayaad ku tilmaantay wax aad ka sheegatayna male. dhibaatada iyo su-aashu meeshay ku socoto waxaa weeye reerka iyagiibaa arkila ninka waxay ku arkila yihiin laakiin ma aadan caddaynin. inkastood sheegtay inaad u gacan furantihiin oo waxaad rabta waxay rabaan aad siisaan laakiin ma garanin. ma wuu kaa wen yahay bay kugu caysanayaan oo 20 sano u kaa wen yahay? ma qabiil bay ku caysanayaan oo isku reer hebel ma nihin bay leeyihiin? ma diintan uu leeyahay iyo cilmigan iyo xooggan iyo awoodan bay ku caysanayaan? ma aada sheegin waxa ay ku caysanayaan. saa daraaddeed hadduu yahay shay lagu dulminayo oo lagaga gardaran yahay kuma ateecayside. waxa weeyaan waalidkaa xuquuqda kuma noqonayside. waalidkaa iyo qaraabadaada waad u nasteexayni xuquuqdaadana waad ka soo bixi ayagana waad soo dhaweyni in alla intaad qaban karto laakiin reerkaaga iyo ninkaaga iyo carruurtaada gooni u dhaqanaysa. hadduu ninku waxaanan ogeyn oo adiguna aadan noo sheegin uu yahay waxa lagaga cabanayo oo ama aflagaada ama maxaa la yidhahdaa waxyaalo kale oo aanan garan karin oo reerku ay dhibsanayaanna waxay u baahan tahay zawjkaaga iyo ninkaaga in dhinacaa laga soco si uu reerku iskugu yimaado biidn illahi tabaaraka watacaala. gabadha hore intaasaan siinayaa. gabadha dambe ma ana fahmin su-aasheeda.
walaalkay oo maxaa la yidhahdaa sidaas abaa la ii cabiidinayaa su-aasha ma aanan garanine haddii hooyada iyo walaalaha ay ku dhaheen wiilka walaalkaa wax u qaba hadday ku dhaheen waxaad u qaban karta unbaad u qaban laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha waxaadan awoodinna cidna kuguma habaari karto cidnana kuguma goyn karto hadday ku gooyaanna waa gardaradooda marka wax alla waxaad u qaban karto qofka walaalkaa u qabo oo ay ugu weyn tahay xagga dacwada iyo diinta iyo inuu ka baxo waxan uu ku jiro oo xumaanta ah xataa haddii ay noqoto qofkii qof ama aan muslim ahayn oo gaal ah ama isyaankiisa uu noqdo caadhin caasi oo weyn uu noqdo taa lafteeda duu gaal noqdana dee qaraabadnimo wayday ka dhaxayn kartaa oo waxaad u qaban kartaad u qaban asmaa binta abibakar hooyadeed gaal bay ahaydoo nabiguna xidhiidhiibuu ku yidhi sala allahu alayh waali wasalam oo qaraabanimadu mar walbaba qiimo gooniya iyo darajo gooniya bay leedahay hadduu caasi yahayna waxaa laga yaabaa haddaad wanaag u samayso inuu diinta kusoo dhawaado marka baabka dacwada iyo xagga diinta insha allahu kasoo gal baan ku dhihi lahaa laakiin anigaa la ii addoomaynayaa oo la ii dulaynayaa aada omaana fahmin qof weyn oo mukallafo qaangaara inaad tahay baan rajaynaya waxaad qaban kartana qabo waxaadan qaban karinna cid kugu qasbi karta malahan ilaahayna dusha kaama saarin tabaaraka wa tacaala ciqaabna ku mudan maysid laakiin hadal macaan iyo gacan waxaad awoodi karto intaa ayaa ku filan ilahay waxaan ka baryay tabaaraka wa tacaala inuu tawfiiqda uuna waafajiyo dadka walaalaha ah muraadkoodana alla tabaaraka wa tacaala uu u sahlo inta aan kusoo gebagabayno maanta idinkoo raalli ah wajazakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum waaxsan allahu ilaykum wassalaamu calaykum waraxmat ullah